السلام عليكم أخيات شرفت لك كسر دوادا جنالك مهموس ميديا فلنهدا كعصبتا جنالك سبسكريب صار لايك صار جنالك موضوعنا maanta wuxuu ku saabsanaa doonaa farqiga u dhexeeya libaaxa iyo shabeelka. Libaaxa iyo shabeelku waa kuwo ka mid ah boqortooyada, gaar ahaan kuwa bariga, waxaana ka tirsan yihiin qoyska bisada. Waa laba xayawaan oo aad u khatar badan isla markaana awoodoodu isku dhowdahay. Wuxuuna muuqaalkan isku barbardhig ku samayn doonaa libaaxa iyo shabeelka oo ka tirsan shanta bisood oo ah labada bisood ugu waaweyn qoyskaas. Libaaxa iyo shabeelku waa kuwo aan lahayn wax ugaarsada marka la eego halganka ka dhex jira duurjoogta, waxayna ka wada tirsan yihiin qoyska cilmi ahaan la yiraahdo Helidae. Waxay sidoo kale ka wada tirsan yihiin qoyska la dhaho Naasleyda, sidoo kalena waa hilib cunayaal. labaduba muuqaal ahaan farqiga u dhexeeya waa mid aynu wada ognahay, waxaana ka mid ah in shabeelku leeyahay leedin dheer oo madow oo aanu lahayn libaaxu, iyo bulbusha libaaxa mar walba oo sii madoobato bulbusha libaaxuna waxay ka dhigaysaa in libaaxu sii duqoobayo. Libaaxa iyo shabeelka waxaa culus shabeelka oo ka dheer, halka libaaxu yahay kalabaad ugu weyn qoyska bisada, halka shabeelku yahay midka ugu weyn muuqaal ahaan. libaaxa ugu weynaa waxaa la ogaaday oo la diiwaan galiyay 1959, culeyskiisuna wuxuu noqday 375 kilogaram. Dhanka kale midka ugu weyn shabeelka waa ka Siberiyaanka ah oo culeyskiisu gaaro 400 kilogaram. Libaaxu waa mid nasta 20 saacadood maalintii, halka shabeelkuna istiraxo 18 saacadood. Laakiin shabeelku waa mid ku tiirsan naftiisa oo kolka uu ugaarsanayo keliya ayaa ugaarsi taga, halka libaaxyadu u nool yihiin koox oo lagu yeero raxan. Raxan kasta waxay ka kooban tahay 15 libaax, mararka qaarna waxa ay gaaraan 30 oo kala ah 3 aar, golosha oo kala duwan iyo dhashooda. Mawduucana maanta halkaas ayuu inooga yahay, waa inoo mawduuca ku xiga. fadlan haddaad ku cusubtahay channelka subscribe saar, like saar, share. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Siyaasi nabadgelyo.